macallimiintooda macallimiin laakiin waa kala macallimnimadooda kala wanaagsan haday noqoto qaabka ardayooda ula dhaqmayaan akhlaaqiyaadka ardayooda kula dhaqmayaan iyo hadday tahay dee qaabka wax ugu dhigayaanba marka nebigu calayhi salatu salaam mucallim buu ahaayo mucallimnimadu waa arrin sharafa weeye mucallinkuna kaalin aada u qiimo badan buu ummadda ugu jiraa hadduu diin u dhigayana dee kama sii muhiimsanba laakiin waxaa loo baahayay xusnu tacliim inuu ku sifoobo baris wanaag marka macallim ka baris wanaagsan nebiga ma arag dabeetana wanaagga macallimnimada nebiga uu ku ammaanay wax ka mida buu sheegay wuxu uhi fa wallahi baan ku dhaartaye maa kaharanii ima dagaalin walaa darabanii ima garaacin walaa shatamanii imana caayin marka macallimnimada wanaaggeeda taasi ka mid tahy inaanad ardayda hatigaadda inaad ka dayso hatigaadda iyo dagaalka iyo hiifka hadallo wanaagsan quluu linnaasi xusnaa dadka hadal wanaagsan ku dhahaso ilaahay ma odhan qul licibaadii yaqulu alatii hiya axsan alkalimatu ayiba sadaqa macallinku waa inu xusuusto kolley macallimadu culays bay iska leedahay lakin dee mujaahadatu nafsi bay u baahantay iyo sabir in akhlaaqiyaadka wanaagsan nafta lagula jihaado la sabro oo culayska macallinka ardayda ka haysta dee dulqaad macallinku u yeesho walaa darabanii mucallimka mucallimnimadiisu ay wanaagsantahy laa yadrib ma garaaco waxaan garaac ahayn bu wax ku xaliya nebigaba calayh isalaatu wasalaam guriga jeedal baa u sugnaa waxaanu ihi calliqu sawta xayu yaraahu ahlu lbeyt ha arkaan usha halkaa u sug laakiin nebigu maca hada lam yadrib biyadihi imra'ata walaa khaadiman walaa axada ila yujaahida fi sabiili illah gabadhna ma garaacin addoonna ma garaacin cid kalena ma garaacin garaacistiisu jihaadkay ku ekayd nabiga calayh isalaatu wasalaam haddii mararka qaarkood loo arko ana aaliba laa yataadab ila bidarbi ardaygu garaacis mooyaane wax kale inaanu ku edebsanahayn dee lidarbi dawaabit darbiga shareecadu ay banaysay ama garaacay banaysay dee dawaabit buu leeyahy xuduud buu leeyahy horta waa inaanad xanaaqsanaan dee adoo xanaaqsan haddaad wax garaacdo dhib baad geysanaysaa ta kale garaacagu taadiibkii edbintii wuu ka baxayaayo wuxuu noqonayaa lilintiqaami watashafi aargoosasho iyo ciilbax buu noqonaya garaacu mar hadduu litadiibna ciqaab loogama jeedo haddii ciilbax iyo aargoosasha ay soo gashana dee ciqaab bu isu bedelaya sooma ciqaab bu isu bedelaya walaa shatamani imana caayin macallinku waa qudwa hadduu isagoo ardaydii caayo waxa weeyaan ereyadee markaa cay oo erey kasta oo dee tanaqus uu ku jiro waa cay caydu ma aha inaad aabihii hooyadii caydo ta waaweyne dadkeenu cayda u yaqaanuna aad ku hadasho walaa shatamani waayo macallimkii dee haddii uu caytamo garaaco garaacan sax ahayn dagaalkiisa iyo canaantiisa iyo hiifkiisa iyo hatigaadiisu hadday badato dee ardayda xag ka baran maayaan laa yatacalamuuna minhum lianna nufuusahum tanfuru minhum waayo nafoodu de way ka didayaan qofka saa u dhaqmaya naftu way ka didaysaa dee marka macallinku waa inuu ku dadaalo siduu ardayda uu isu jeclaysiin lahaa qof wax lagu jeclaadana waxyaaba u muhiimsan waxaa ka mid a xusnu tacaamul xusnu khuluq buuqoodii iyo qayladooda iyo kadeedkoodan iyo waxooda o dhan si yar baad kelimaad yar baad ayaad ku xallin kartaa bax iyo dhaaf iyo waxba aadan odhan galaaska uu iskaga jiraba ayaad xallin kartaa waqad jarabtu dalika kaiira arka kaiir min almucalimiin oo xataa ardayda waaweyn fi ljaamica fi lmacaahid banaanka usoo saaraya juuq hadduu ardaygu idhaa bax banaanka u saaraya mujarad inaad saa u egto inta darsiga yaro joojiso ayaa ku filan iska aamusayaaba qofka ama aad tidhaahdo sidaan anigu mararka qaarkood sameeyo ma dhamayseen intan yaro aamuso ha waanu dhamaynay inay khaldameen bay isgaranayaan tana hadalkii bay joojinayaan yaani siyaabo yaroo aada u fudud baad ku maamulan kartaa galaaska khaladaadka ardaydan aad ku sixi kartaa rabshadana waxa weeyaan aad kaga hortegi kartaa lakiin haddaad taasun gurto
kii juuq idhaahdaba marka dambe dadka waaweynna waad ku odhan nin macallina wuxuu igu yihi suustaasay iga qabsatayo odayaasha waaweyn xataa marka la shiriya waxaan is arkaya tulaya kii juuq idhaahdaba waa halis wey